Assalaamu calaykum walaalaha ku xiran kanaalkeena Dansheeg. Maanta waxaanu eegaynaa macnayaasha magacyada bilaha sanadka miilaadiga ah. Bisha koowaad ee January waxaa laga soo qaatay magac ilaahyada lahaayeen Roomaaniyiintii Janus, waxayna u yaqaaneen ilaah labada waji leh, waana ilaah wax kastoo cusub iyo wax kastoo bilow ah, waxaana u yaqaaneen Roomaaniyiintii hore. Bisha labaad ee February waxaa laga soo qaatay magaceeda dabaaldegay lahaayeen Roomaaniyiintii hore, kaasoo loo yaqaanay February, waana kelmad Laatiini ah macnaheeduna yahay nadaafad. Bisha saddexaad ee Maaris waxaa lagu magacaabay magaca ilaaha Maaris, waxaana Roomaaniyiintu u yaqaaneen ilaaha dagaalka, iyagoo ugu sababeeyay dabaylaha iyo daadadka jira bishaas. Bisha afraad ee Abriil magaceeda waxaa laga soo qaatay kelmad Laatiini ah oo macnaheedu yahay furitaan, sababtoo ah bishan waa bisha ay furmaan ubaxyada qaaradda Yurub. Bisha May waxaa loo nisbeeyay magaca Maya, waana hooyada Mercury, ayna u yaqaaneen Roomaaniyiintii hore tii loo soo diray ilaahyada. Bisha lixaad ee June waxaa loo nisbeeyay Juno, waana xaaska Jupiterkii weynaa ee ilaahyada Roomaan. Bisha toddobaad ee July waxaa lagu magacaabay boqorkii diktaatoorka caanka ah ee reer Roomaan, Julius. Bisha sideedaad ee August waxaa lagu magacaabay magaca Emperadorkii Octavius, kaasoo magaciisa u bedelay August oo macnihiisu noqonayo kii sharafta lahaa, wuxuuna aaminsan yahay inay ahayd bishuu weeraray boqortooyada Masar ee Cleopatra. Bisha sagaalaad ee September waa bisha sagaalaad ee sanadka miilaadiga ah, laakiin waxaa lagu magacaabaa kelmad Laatiini ah September, taasoo loola jeedo 7 ka hor intaysan bedelin boqorradii Roomaan. Bishan waxay ahayd bisha 7. Si isku mid ah bilaha October, November iyo December waa erayo Laatiini ah macnayaashoodu noqonayaan 8, 9 iyo 10, waan tirsi-sanadeedka Roomaaniyiintii hore, waxaana dowladda Roomaan adeegsan jirtay kalandar ka kooban 10 bilood, taasoo kasoo bilaabatay 753 ka hor miilaadiga, waana sanadkii la aasaasay magaalada Roma. Wuxuuna boqorkii diktaatoorka ee Julius ahaa mid u bedela kalandarkii hore ee Roomaan, isagoo la kaashanaya mid ka mid ah xidigistayaasha reer Masar ee loo yaqaanay Sisinio, wuxuuna u bedelay kalandar cusub oo u bixiyay Juliani, kana dhigay tirsi-sanadeed ka kooban 12 bilood. Laga soo bilaabo sanadkii 532 ee miilaadiga, wuxuu ahaa raahibkii reer Armaani inuu ka dhigo bilowga sanadka inuu dhashay Masiix, halka markii hore loo yaqaanay sanadkii la dhisay magaalada Roma. Masiixiyiinta bari waxay xaflad u dhigaan dhalashada Masiixa maalinta 7 ee bisha January, halka Masiixa waqooyiga xafladda dabaaldeg u dhigaan 5 December, waana halka ay ka timi in loo dabaaldego wax la dhaho sanad cusub ama Happy New Year. Maanta mawduucana intaas ayuu ku saabsan yahay. Fadlan hadaa ka heshay kanaalka subscribe, videogana like. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.